xafladda qalin jabinta ardayda ka qalin jabisay ogaal akademi burco waxa lagu qabtay hoolka jaamacadda alfaham ardaydani waxay ka qalin jabiyeen talaalka iyo sida ugu fiican luqadda lagu barto xafladda waxa ka soo qayb galay agaasimaha madaxtooyada burco maamulka garsoorka gobolka Tordheer xildhibaano marti sharaf waalidiin arday iyo maamulka akademiyada iyo macallimiinta akademiyada waxa ugu horeen xafladda ka faahfaahin ka bixiyay maamulaha akademiyada maayo waayo madaxdan u deeniya hadalka runtii ogaal akademina gobolku buu horumarinaya development ku soo kordhiyay idinkuna inay ka faa'iideysataan ma jeclahay koorasooyin kala kale inoo bilaabmaya insha Allah inaan inta ay kala waka si runtii ka si way aad ma santiin mar labaad iyo mar koobaad aad ma santiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad ma santiin runtii waa idin mahad celinayaa dhamaantiin laba kelmadood baan ku soo koobay hadalkayga mid waa ka afeefanaya saaxiibaday waxa dhahan sheekhana laba mid baa lagu gaaraa mid sheekhul cilmi baa la yiraahayo cilmi baa lagu gaaraa midna da' baa lagu gaaraa marka labadii midna maan gaarin taa waa ka cudur daaranaya midda kalena waa duca iyo bogaadin iyo talasiin ardayda qiimaha badan leh qalin bedelatay cilmigu waa raacasho barbilow buu leeyahay laakiin bar dhamaad ma laha ilaa maalinta dunida ka xaroonayso cilmiga jaaniskiisa iyo raacashadiisu way ku banaan tahay markasta talaabo qaado ama in kamida cilmiga aad markaasi taabatana waa inaad tu kale u sii tiigaashan weeyaan maanta haddaad qalin bedelateen hays odhanina cilmigii waad koobteen laakiin talaabooyin kale oo cilmi barasho ama cilmi raadashasho waa inaad mar kale u tafaxaydataan marka wax la baranayo asaaliib iyo hab wax loo bartaa jira asaaliibta waxa kamid ah inaad cilmiga marka hore kiisa wanaagsan ilaahay inuu kugu sugo aad ku ducaysato nabi maxamed oo ilaahay dhowray oo dambigiisii hore iyo kiisii dambaba dhaafay ayaa misana allah wuxuu amrayaa inuu cilmiga ku ducayso waqul rabbi sidni cilma marka maxaynu uga baahi badanna inaynu inagu cilmi raacano ama cilmi raadino maadaama nabi maxamed oo ilaahay wax baray haddana uu amrayo inuu ku ducaysto cilmiga waxa looga baahan yahay inaad niyad saafiya ku qaabisho oo maalinta sucuubka iyo dhibtu ka hor timaado aadan barolamiska ku soo wajaha aadan u leexanin inaadan waxa weeyaan markaasi aadan isodhani meel fog baad ka timaadaaye waxa weeyaan iska daa culimada maanta 1400 oo sanadood ama 700 oo sanadood cid kastoo magaceeda ay soo qaadaa la leeyahay ilaahay ha u naxariisto loo ducaynaya cilmiga qaar baa waxa la soo naqliyaa inay kula kulmeen gaajo dhamaanteed inay kula kulmeen oo mararka qaar ay gaajo la suuxi jireen kuwa kale habeenkii bay 16 jeer kici jireen kuwa kale dayaxay wax ku qori jireen kuwa kale lafaha intay ku daafada ka soo ururiyaan ayay buu ka dhigan jireen maanta inagu muraayad iyo projector iyo sawirad cad iyo waxbaynu wax ku dhiganaynaa qoliyii hore waynu ka jaanis badanahay waxaan ku soo gabagabeynayaa in cilmiga aad raacataan waa shay cid kasta waajib ku ah ta kale cilmiga markaad barataan waa inaad ku camal fashaan hadduu diini noqdo iyo hadduu markaasi maadi noqdoba labadaba ummadiina iyo dadkiina ayaa u baahan wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullahi Abdirahman Digaale sawir qaadis sidan baraarujiye nay Somali TV Burco